We will talk about a very important problem and very common problem here in Somalia, which is infertility. Assalamu alaikum. I am Dr. Ali Muhammad, urologist doctor in Somali Sudanese hospital. Infertility has many causes and should not be waxaan ahay ignored. Dr. Ali Muhammad oo ah dhakhtarka kelyaha kaadamareynta iyo taranka ragga ee isbitaalka Somali Sudanese. Dhalmalaantu waa dhibaato ay sababi karaan sababo badan, mana ahan mid la iska indho tiri karo. Sababaha ugu badan ee dhalmalaanta ragga waa galaha varicocele oo ah marka xididdada dhiiggu ay ku wareegsan xaniyaha ay xanuunsadaan. Laakiin varicocele kaliya ma aha sababta kaliya ee ciladan horseedka ka ah. Just the only cause. We have many causes. So when the patient comes to us, we study all these causes. Of course, we start with examination of varicocele. Waxaa jira sababo kale oo badan. Marka bukaanku yimaado waxaan u sameynaa baaritaano dhammaystiran si aan u ogaano sababaha saxda ah ee dhalmalaanta. Waxaan ka bilownaa baaritaanka varicocele-ka, kadibna waxaan sameynaa falanqaynta shahwada, semen analysis iyo baaritaano kale sida hormoonada jirka. Mararka qaar waxaa jira xannibaad ku timaada tubooyinka shahwada, taasoo keeni karta in shahwadu aysan si sax ah uga soo bixin xaniyaha. Dhibaatadan oo aad ugu badan gudaha Soomaaliya oo ay ka cabanayaan rag badan oo Soomaaliyeed waa la daweyn karaa. Mararka qaarkoodna waxay u baahan tahay qalliin lagu sameeyo microscopic surgery. Sidoo kale isbedelada hormoonada ayaa door muhiim ah ka qaata dhalmalaanta, waana qayb ka mid ah baaritaanada aan sameyno. The most important problem that the patient sometimes ignore his problem or he doesn't know his problem. So every guy or married guy waxa ugu muhiimsan waa in ninku uusan iska indheetirin dhibaatadiisa ama uusan sugin muddo dheer. Haddii ninku sanado badan uu ilmalaan yahay, waa inuu si degdeg ah u tagaa dhakhtar takhasus leh. Mararka qaar sababtu waxay noqon kartaa mid fudud sida xididdada oo bararay. Mararka qaarna waxay noqon kartaa mid u baahan daaweyn qoto dheer. Intaba waxaan idin leenahay diyaar. Waxaan idin siin doonaa adeegyo casri ah iyo daaweyn dhammaystiran. Markasta waa timaadaan isbitaalka Somali Sudanese. Haddii aad tahay nin doonaya inuu ku ildoogsado ubad uu dhalay insha Allah, waqti dambe ha iska lumin ee Somali Sudanese Specialized Hospital noogu imaaw. Isbitaalka takhasusiga ee Somali Sudanese waa xalka dhalmalaanta, waana kugu soo dhaweynaynaa mar walba. Mahadsanid. and we are welcoming you anytime.